talow ma yahay ninkan aad jeceshahay ee xiriirka idinka dhaxeeyo ninkii aad doonaysay inuu mustaqbalka kula wadaago ninkii aad jeclayd inuu noqdo lamaanahaaga nolosha waad ku mahadsan tahay daawashada videogan kusoo dhawow selfie goal magacaygu waa Yuusuf Sakiin run ahaantii waqtigan la joogo gabadha hesha wiil si dhab ah u jecel oo si dhab ah u doonaya inuu guri la dhiso waa gabar aad iyo aad u nasiib badan saa darteed maanta waxaan kula wadaagayaa 7 calaamadood oo lagu garto in ninkan aad heshay uu yahay ninkii aad weligaaba aad ku riyoon jirtay ninka saxda ah ee noloshaada nin weligiisa ku jeclaanaya oo aan marnaba ka tagaynin haddaba su'aashu waxay tahay maxay yihiin calaamadahan cajiibka ah calaamada koowaad uu ku daryeelaya ninkan uu ku daryeelaa mar walba wuxuu jecel yahay inuu ogaado xaaladaada caafimaadkaaga waxa aad ku sugan tahay mar walba wuxuu jecel yahay inuu kula socdo waxa aad ku sugan tahay inuu mar walba la socdo ayuu jecel yahay wuxuu dhageystaa sheekooyinkaaga kama daalo sheekooyinkaaga balse uu ku farxaa marka uu kula sheekaysanayo sidoo kale marka cajisan tahay wuxuu jecel yahay in markiiba uu ku adeego wuxuu ku karinayaa cuntada wuxuu ku keenayaa cuntada u baahan tahay waxa u baahan tahay ayuu ku keenayaa markiiba muhiimadiisu waxay tahay inuu adiga ku daryeelo inuu adiga ku adeego calaamada labaad waxay tahay wuxuu jecel yahay inuu mar walba kula joogo haddii mar walba uu ku soo diro fariin ama telefoon uu ku yiraahdo waxaan doonayaa inaan ku arko waxaan doonayaa inaan kula kulmo ogow ninkan inuu aad iyo aad u jecel yahay la joogitaankaaga marka aad la joogtid una ku farxo midaasi oo aad iyo aad u jecel yahay arrintaasi calaamada saddexaad waxay tahay wuxuu kula wadaagayaa qaraaradiisa waaweyn go'aanadiisa waaweyn ma ahan mid kaligiis iska qaata qaraarada asagoo ku soo wargelin asagoo ku sheegin oo hadhow meelaha aad ka ogaatid may wax walba uu qaadanayo qaraarada waaweyn uu qaadanayo waxa tahay adiga qofka ugu horeeya ee ogaada qofka ugu horeeya ee la tashto qofka ugu horeeya ee dhageysto ra'yigeeda waa adiga calaamada afraad waxay tahay wuxuu ku barayaa ehelkiisa wuxuu ku barayaa qaraabadiisa wuxuu ku barayaa waalidiintiisa wuxuu ku barayaa walaaladiisa waayo adiga waxa tahay gabar u doonayo inuu la yeesho mustaqbal saadadeeda ma ahan mid wax ka qaranaya mid mugdiga ku wareeganaya wuxuu jecel yahay in adduunkooda u sheego in adiga uu ku jecel yahay in adiga uu kula socdo ma jiraan wax uu ka cabsanayo waayo ma sameynayo asagaba wax qalad ah oo mudan in la qariyo calaamada shanaad waxay tahay wuxuu ku sheegayaa sheekooyin uusan u sheegin dadka kale wuxuu ku sheegayaa sheekooyin uusan u sheegin dadka kale sheekooyinkan adiga oo kale ayuu ku sheegayaa xitaa uma sheegayo dadka kuwa ugu soo dhow asaga habeenkii xilliga dambe waa waqtiyada ay sheekooyinka muhiimka ah ugu fiican yihiin xilligaas wuxuu ku sheegayaa sheekooyin uusan qof kale u sheegin balse adiga oo kaliya uu kula wadaago calaamada lixaad waxay tahay kama cabsado inuu ka hadlo mustaqbalka marka aad kala sheekaysatid arrimaha mustaqbalka ku saabsan guriga aad jeceshahay inaad ku noolaatid caruurta aad doonaysid inaad dhashid marka arrimahaasi ka wada hadashaan markiiba kaama wareejiyo mowduuca kuma diro meel kale balse wuu jecel yahay arrintaasi inuu adiga kaa maqlo inuu kaa dhageysto inuu mustaqbalka uu ka hadlo in guriga uu ku noolaanayo uu ka hadlo in waxa meesha uu deganaanayo inuu ka hadlo arrimaha mustaqbalka ay kama cabsado kamana cararo balse wuu jecel yahay inuu kaala hadlo calaamada toddobaad waxay tahay wuxuu jecel yahay inuu kaa dhigo boqoradiisa wuxuu jecel yahay inaad ahaatid boqoradiisa in noloshiisa oo dhan aad la wadaagtid waayo waxaa tahay adiga qofka koowaad ee noloshiisa kuma ogolaanayo kaliya inaad ahaatid boqorad balse wuxuu doonayaa inaad ula dhaqantid adigana sida adiga oo ah boqorad marka uu kula joogo marna ma deynayso dhoola cadeynta wejigiisa mar walba wuu dhoola cadeynayaa mar walba wuu faraxsan yahay waayo wuxuu og yahay adiga inaad tahay qoftii uu rabay 7 calaamadood haddii aad ka heshid ninka aad xiriirka idinka dhaxeeyo
aad jeceshahay ogow inaad heshay lamaanahaagii nolosha. waxaan ku rajeynayaa inaad ku noolaatiin nolol farxad iyo reereen leh. ha iska daynin, si fiican u qabso. waxaad haysataa dayman aad qaali u ah. waxaad heshay jecelkii aad weligaagaba doonaysay. waxaad heshay qofkii noloshaada saxda ahaa. ku dheg, ha ogolaanin inaad marnaba aad sii daysid. waad mahadsan tahay.